ballamaha lagaaga baxo ayaa sabab u ah inaadan mar kale aaminin dadka qaar. noloshu haddii ay ku soo hor dhigto 1000 sababood oo aad ku murugooto, ku ilmayso, kuna niyad jabto, adigana waxaad hor dhigtaa malaayiin sababood oo aad ku dhoola caddayn karto, ku qosli karto, kuna soo bandhigi karto inaad tahay qof adag aysan duruufuhu beddeli karin. qofka aragga la wuxuu ku haminayaa inuu maalin un arko dunida. qofka maqalka la wuxuu ku haminayaa inuu maalin un wax maqlo. qofka cuuryaanka ah wuxuu ku haminayaa inuu maalin un socdo. qofka maxbuuska ah wuxuu ku haminayaa inuu maalin un helo xorriyaddiisa. adigana intaas iyo in ka badan ayaad haysataa ee uga mahadceli rabbigaaga. alla qalbigaagu cajiibsanaa, waa la dhaawacay, waa laga oysiiyey, waa la qiyaamay, waa la xaqiray, waa la dulmiyey, waana laga tegay. sidaas ay tahana wax kastoo ku dhacay weli wuu shaqaynayaa. dadka leh qalbiyada jilicsan ee u saaxiibka ah naxariista ma ahan dad doqomo ah oo aan ka damqanayn waxyaabaha lagu samaynayo, laakiin iyagoo wax walba og ayay misana cafiyaan oo sii cafiyaan mar kale, sababtoo ah waxay leeyihiin qalbiyo qurux badan. ha ka murugoon marka ay dadka qaar ku diidaan, maxaa yeelay waxyaabaha qaaliga ah ee wanaagsan mar walba way diidaan oo ma awoodaan dadka aan heli karin. sabarku waa dawada wax kasta ee marnaba ha ka tanaasulin inaad sabarsiiso naftaada. dadku ma wada fahmayaan duruufahaaga iyo dhibaatooyinkaaga. qaarkoodna ayagoo ka warhaya waxa ku dhibaya ayay haddana ku sii dhibaataynayaan si ula kaca, balse waxba ma ahan waxaas oo dhan. waxaad ka baranaysaa qaar ka mida casharada kharaar ee nolosha. noloshaadu waa buug ay qormo ku socoto. haddii aad la kulanto wax ku niyad jabiya, ha dul taagnaan boggaas ee u gudub baal cusub, iskana jaf boorka. calool baahan, jeeb eber ah iyo qalbi jabanba waxay ku baraan cashirada ugu wanaagsan ee nolosha, waxayna kaa dhigaan qof adag oo waayo arag ah. ogow, xaaladaha adag ee ku soo mara waxay dhisayaan qofnimadaada, waxayna kuu diyaarinayaan mustaqbalkaaga. haddii aad diiradda saarto dhaawaca qalbigaaga, waxaa kugu sii siyaadi doona xanuunka, balse waxaad diiradda saartaa cashirka aad ka baratay dhacdada ku dhaawacday, siina wada howlmaalmeedkaaga. wakhti kastoo adag wuu dhammaanayaa, waxaana kugu xigi doona maalmo aad la ilmayso farxad darteed, balse wakhtigaas adag wuxuu dhammaanayaa marka aad adigu u aragto inuu yahay cashir ka mida cashirada nolosha, aadna sii wadato noloshaada. ugu dambayn, marnaba ha ku xirin farxaddaada bashar adiga kula mid ah ee u dhoola cadday nolosha, sababtoo ah waxaad ku nooshahay fadliga allah.